munaasabad ballaaran oo maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu shaaciyay in guul weyn laga gaaray u diyaar garowga qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug amniga magaaladana si buuxda loogu wareejiyay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankan oo ay ka qayb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa waxaa hadallo kooban ka jeediyay wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxa fulinta Galmudug xildhibaan Mahad Salaad iyo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta Galmudug ugu horeyn wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriyo oo ka warbixiyay guulihii laga gaaray qorshihii socdaalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ee uu Galmudug waayahan ku joogay ayaa sheegay in natiijo wanaagsan laga gaaray amniga isku dhafka ciidamada dib u heshiisiinta loogu diyaar garoobayo doorasho lagu dhiso Galmudug midaysan walaalayaal waxaad ogtihiin aan rabnaa maanta inaan la wadaagno dhammaan shacabka reer Galmudug shacabka Soomaaliyeed iyo caalamkaba inaan soo gudbino natiijo wanaagsan oo laga gaaray wada hadalkii u dhaxeeyay dowladda federaalka wafdigoodii uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Kheyre iyo dowlad goboleedka Galmudug oo uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Shaakir halkaan shirarkii ka dhacay afgarad wanaagsan oo laga gaaray aan rabaa inaan si kooban u soo gudbiyo maadaama waqtigu yar yahay maalmahan dambe 3-4 maalmood waxaa miidiyada social media iyo xanta carrada taala ahayd wixii xoogaa waa istaageen qaarna waaba ku sii dareen waxay yiraahdeen gadaalay u noqdeen waxaan rabaa maanta halkaan inaan ka cadeeyo hawshii laga hayay Galmudug oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug ay wadeen waxaa ka soo baxay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa munaasabada ka cadeeyay in maanta laga bilaabo si guud ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay mas'uul ugu yihiin amniga magaalada Dhuusamareeb aan cadeynaynaa ka federaal ahaan in maanta laga bilaabo 2 Agoosto sanadka 2019 ee si guud ciidanka federaalka qaybahooda kala gedisan ee mas'uul ugu yihiin amniga Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan gaarsiinaa fariintan ah iyo bulshada ku nool reer Galmudug inay halkaan imaan karaan in amnigana hadii ahaan lahayd garoonka laga soo dego diyaaradaha meelaha laga soo gal checkpointska iyo magaalada iyo goobaha ka dhacay shirarka oo dhan iyo guud ahaan magaalada waxaa mas'uul ka ah ciidamada federaalka qaybahooda kala gedisan marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay waxaan maqalada cabasho ka keenay marka waxaan gaarsiinaa fariintaas ah inaan diyaar u nahay inaan la wareegnay in sidoo kale ee mas'uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliyeed aad ugu faraxsanahay madaxa fulinta Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo uu mahad celiyay cid kasta oo ka qayb gashay guusha laga gaaray ayaa ku bogaadiyay ciidamada amniga inay ka shaqeeyaan ka guulgaaridda mas'uuliyadda xoogan ee dusha laga saaray iyo ay joogaan ayakana waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida ay dowladda federaalka u soo dhaweeyeen u garab siiyeen u garab taagan yihiin ayadana waa ku soo dhaweynayna waxaan kaloo sheegaynaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay amniga inay sugaan maahane waxa ciidan oo kale in banaanka laga geeyo caasimadda in laga baxsho oo ciidamada kale oo ku sugan ayadana sidaas waa lagu ballamay biidnillaahi kariim waayo ciidamo gaar ah oo federaalkii ah oo wasiiradu ay ka shaqeeyeen ayaa lagu wareejiyay marka wixii ciidamo oo kale caasimadda iyo banaanka laga geynaya ayakana hadii alla yiraahdo si amnigu oo sida loogu talagalo u shaqeeyo xildhibaan Mahad Salaad oo munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa arintani ku tilmaamay guul kale oo taariikhi ah oo lagu dhameystirayo dib u galeelida maamulka Galmudug waxa uu ballan qaaday in xildhibaanada deegaanku ay qayb ka qaataan ka guulgaaridda dib u heshiisiinta iyo reyn aan la soo koobin karin ayay noo tahay maantay inaan goobjoog u noqono guul kale oo taariikhi ah oo kamid ah guulaha lagu dhameystirayo dib u galeelida iyo dhismaha maamulka Galmudug runtii aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa
aniga oo ku hadlaya senatarada iyo xildhibaanada saaxiibada ee heer federaal runtii waan ka mahad celinaynaa heerka wax soo gaareen iyo shaqada aad soo qabateen oo runtii u dhabar adeegteen maantay. gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo ayaa madasha ka sheegay in guddiga ay ku faraxsan yihiin guushan taariikhi ah ee laga gaaray dhammaystirka shakigii bulshada galmudug ay ka muujinayeen ammaanka dhuusamareeb. waxa uuna ugu baaqay reer galmudug dhammaan in ay shirweynahan ka soo qayb galaan oo ay ayahooda ka tashadaan. haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta maanta farxad weyn ayay noo tahay. waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee galmudug. dadku waxay nagu xiraayeen shuruud adag. shuruudaas adag waxaa waa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo galmudug ah muxuu ahay caasimadda dhuusamareeb ee galmudug nabad ma tahay la isku hadlay karo. markii halkaan aan ku ballannay ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xukuumadda madaxdeeda wasiirada aan ku ballannay waxaan kala qaadanaa shaqo. shaqadaas waxay ahayd saddex arrimood inaan qaybsanno. qayb wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lahayd waxaa waaye gogasha inay fidiso oo meel la degi karo oo logistikada ay dhammaystirto oo dadku ay meeshay degaan iyo meel munaasaba inay noqoto. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaadatay. in amniga magaaladana uu xasilan yahayna wasaaradda amniga ayaa laga rabay iyo sheekh maxamed shaakir iyo tiimkiisa oo saadiq ku jiro. annagana waxaan loo xil saaraa meel nabad dadka inaan keenno. dadka waxaan u sheegaynaa marka annaga waxaan idinka rabnaa meel nabadahan keenaynaa oo waana loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay. hadday nabad noqotona waxaa la idinka rabaa marmarsimo ma lehe inaad isugu timaadaan caasimadiinna oo aad ka wada hadashaan danihiinna oo aadan ku xirina yacni aan lagu xirin waxyaabo kaleetood aan shuruud la geenin. talada waxay ka dhexaysaa reer galmudug ayaka ayaa tala laga rabaa inay tashadaan wixii ka soo hallaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayakaa laga rabaa. marka maanta waxaa waaye waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacbiga soomaaliya meel kasta ay joogaan shardiga amniga ah waa xasila waa maqlayseen. ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airboorada iyo magaalada meelaha laga soo galay. wasiirka amniga waa u jeedaa wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in logistikadu ay diyaar tahay. marka waxaan ka rabnaa beelihii la cazumay oo loo qaybshay nambaradii loo qaybshay waxaan ka sugaynaa marka wixii ka dambeeya inay liisaskooda soo gudbiyaan